COVID19 oo loo soo gaabshay coronavirus disease 2019 waa cudur halis ah oo uu sababo nooc kamida group ilma aragta oo lagu magacaabo coronavirus gaar ahaan nooca la yiraahdo SARS-CoV-2 kaasoo lagu soo waramayo inuu markiisii hore ka imaaday xayawaanada kadibna u soo gudbay bini'aadanka kaasoo laga helay xaaladihiisii koowaad wadanka China kadibna ku faafay caalamka intiisa badan waa cudur halis ah oo faafitaankiisu aad u sahlan yahay kaas oo ku dhaca ama waxyeeleeya habdhiska neefmareenka ma yahay xanuunka coronavirus xanuun khatar ah jawaabtu waa haa sababtoo ah waa xanuun ku dhacay in ka badan 600 oo kun oo qof oo dunida dacaladeeda kala jooga waa xanuun dilay in ka badan 30 kun oo qof waa xanuun intaa in leege ay halis ugu jirto noloshooda caafimaad waa xanuun maanta ay u jiifaan in ka badan 500 oo kun oo qof caabuqan wuxuu ku gudbaa isagoo ka imanaya qofkii xanuunka siday oo u gudbaya qofkii caafimaadka qabay sida inuu qufaco amba inuu hindhiso idinko isku jira masaafo ka yar 1 mitir sida aad xanuunka ku qaado sidoo kale kama manna in aad taabato qofka laftigiisa ama aad taabato meel uu kaaga soo horeeyay deetaa fayraska gacanta ku qaadato hadhowna afka ama wajiga ku taabato oo sida uu xanuunku ugu gudbo xanuunkan waxa uu nugul dadka age-koodu waaweyn yahay amba da'doodu weyn tahay dadka xanuuno dheeraad qabay sida macaanka dhiigkarka azmada iyo wixii la soo hormaala fayraskan markuu jirka soo galo waxay ku qaadan kartaa ilaa 14 maalmood inta uu xanuunku qofka ka soo daahirayo calaamadaha ugu muhiimsan xanuunkan waxa weeye qufac qalalan qandho neefta qofka ku adkaata iyo daalbaan uu qofku dareemayo dadka qaarkii wax calaamada ma lahan karaan kuwa kalena wuxuu ku noqon karaa sidii duray oo kale ama hargabka oo kale sidoo kale wuxuu noqon karaa ofreen ama pneumonia xanuunkan dhibaatooyinkiisa waxaa kamid ah inuu sababo hawlgabka sanbabka iyo caabuqa dhiigga raaca oo loo yaqaan sepsis sidee ayaa looga hortagi karaa cudurkan gacmahaaga si joogto ah u dhaq kuna dhaq biyo saabuun iyo alcohol iska ilaali inaad taabato afkaaga sankaaga indhahaaga gacmahaaga oo nadiif ahayn ka fogow qof kaste oo xanuunkan qaba amba leh astaamihiisa oo kale iska ilaali goobaha ama meelaha ay dadku ku badan yihiin ama iskugu yimaadaan marka aad rabto inaad hindhisto ama aad qufacdo ku dabool afkaaga tiish ama suxukaaga ku dadaal nadaafadaada si guud iyo ta gurigaaga iyo agabka yaal waa muhiim inaad seexato hurdo kugu filan qaadato cunto sixiya si aad kor ugu qaado difaaca jirkaaga iyo awooddaada haddii aad isku aragtid ama iskaga shakisid calaamadaha cudurka coronavirus waxaa muhiim ah inaad la xiriirtid xarumaha loogu talagalay la tacaalidda cudurkaasi waxaa sidoo kale muhiim ah inaad adigu iskarantiishid oo ku ekaatid gurigaaga adigoo xiranaysid face maskiga sidoo kalena mar walba dhaqaya gacmahaaga ogowna cudurkan ilaa hadda ma jirto dawo loo helay ama tallaal looga hortagi karayo haddii aynu ogaanay khatarta uu leeyahay xanuunkani maxaa la gudboon ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan fariinta koobaad aynu halkan ka diraynaa waxay tahay in aynu Ilaahay ka barino in uu xanuunkan inaga kor qaado inaga iyo adduunkaba fariinta labaad waxa aynu leenahay waa in la qaato talaabo kasta oo lagu yareyn karo amba lagu joojin karo xanuunkan sida in la joojiyo isu socodka gudaha iyo dabadda in la tababaro dhakhaatiir isla markaasna la qalabeeyo in la furo xarumo caafimaad ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leenahay ugu dambeyn waa inay u dhibirsanaadaan oo aanay nolosha qaaliyeynin isla markaasna meel kastoo la joogo in la iscaawiyo fadlan mas'uuliyad iska saar caafimaadkaaga ka qoyskaaga iyo bulshada badqabka bulshada qaybaheeda kala duwan ilaahay aamin oo tala saaro kadib raac talaabooyinka aan hore u soo sheegnay iyo talooyinka caafimaad ee dawladdeenu soo jeediso amba hadba dawladaha kale aynu ku noolahay fadlan gurigaaga joog